nabadda odayaal mar kale ku soo dhawaada Han Entrepreneurship maanta waxaan soo qaadan doonaa saddex qodob oo aas ama saldhig u ah guusha ay gaadhay shirkadda Amazon. Shirkadda Amazon waa shirkad asal ahaan ku bilaabantay inay ku iibiso buugta habka online-ka. Jeff oo asaasaha Amazon waxa uu yagleelay shirkadda Amazon sanadkii 1994 waqtigaas oo in habka online-ka lagu iibiyo buugta aad u yareed oo ay jirtay uun maktabadahan caadiga ee suuqa yaala. Jeff sanadkii 2017 bishii July ayuu noqday ninka dunida ugu taajirsan isagoo kaalinta kala wareegay Bill Gates. Hadda waxaan soo qaadan doonaa buugga uu qoray wariyaha Brian Stone ee uu ka qoray Jeff waxa uu ka sheekeynayaa saddex arrimood oo saldhig u ah guusha ay gaadhay shirkadda Amazon. Saddexda arrimood oo muhiim u ah ganacsatada dhexe iyo yaryar iyo waaweyn ee Soomaalida runtii hadii waxa weeyaan ay sidooda u qaataan. qodobka koowaad waxa weeyaan customer center. Amazon waxa aas u ahayd in macmiilku uu yahay udub dhexaadka ugu weyn ee ay ka fikiraan hantidooda, halaburnimadooda iyo talaabo kasta oo ay shirkadu qaadaso waxay ku saleysay inay eegto macmiilka. Macmiilkay daraasaysay wuxuu u baahan yahay bay raadisay waxa uu baahan doona ay ogaatay kadib talaabooyinka ay qaadayso iyo waxyaabaha ay iibinayso markasta waxay ku saleyn jirtay aragtida macmiilka. Waa aragtiyo badan baa jira. Marka udub dhexaadka koowaad ama waxa koowaad ee guusha gaarsiiyay Amazon waxa weeyaan inay dar yeeshay qancisay ilaalisay raali gelisay ka fikirtay daraasaysay macaamiisheeda. waxa ugu weyn ee lagu kari laayay ganacsatada Soomaalida macmiilka wax weyn uma arkaan waxa ugu muhiimsan saaran waxa weeyaan wax soo saarka ama waxa weeyaan alaabta iyo adeegga uu iibinayo ay shirkadu u malaysaa inuu ka qaalisan yahay macmiilka ka iibsanaya. qodobka labaad ee marka Amazon saldhigga u ahaa guusheeda waxa weeyaan ee uu sheegay Jeff oo asaasaheedu inay lahayd wax la yiraahdo long term oriented. talaabo kasta oo ay qaadayso waxay ka fikiri jirtay mustaqbalka fog. Jeff oo arrimaha ka hadlaya waxa uu yiraahdaa shirkado badani haddii sanadka koowaad ama sanadka labaad ama sanadka saddexaad ay ku guuldareystaan inay faa'iido ka gaadhaan waxay qabanayaan waxay uga wareegaan wax kale oo ay faa'iido ka helayaan. laakiin Amazon way sii wadaysay talaabooyinkaas iyadoo oo doonaysa 20 sano kadib wax soo saarkan ay sameynayso iyo waxaan ay iibinaysaa faa'iidada uu yeelan doono ee uu dhali doono. ninka loo yaqaano Jack Ma oo asaasaha Alibaba shirkadda la yiraahdo ayaa wuxuu ka sheekeeyaa hadaa doonayso ama ganacsigaagu uu guusha ugu weyn u gaaro in waxa aad qabanaysaa uu noqdo wax 20 sano kadib noqonayo waxa baahida ugu weyn loo qabo. hadba dhibaatada aad xallisaa inta ay leegtahay iyo faa'iido ay gaadhaan leegaanaysa. qodobka saddexaad hadii uu gudubno marka waxa weeyaan Jeff oo ku sheegaya in shirkadda Amazon ay saldhigu tahay waxa weeyaan to invent waxa la Soomaalihan wax ku noqonaya curinta ama hal abuurnimada. markasta Amazon waxay isku day jirtay inay hal abuur ku noqoto waxa ay dadku u baahan yihiin inay hal abuur ku noqoto horumarinta shirkadda gudaheeda. Jeff oo arrimaha ka hadlaya waxa uu yiraahdaa shirkaduhu waxay inta badan eegaan talaabooyinka ay qaadayaan tartamayaashooda shirkadaha la tartamaya. laakiin Amazon waxay eegi jirto kaliya inay iyadu noqoto cidda la dabagelaya ee raaciyada iyo shacabka ay u noqonayaan tartamayaashu. mar walba inay curin kaga horeyso wax cusub oo ay curiso ay ku soo kordhiso shirkadda ay ku soo kordhiso si ay uga daydaan tartamayaashu. halkay ka eegi lahayd tartamayaashu talaabooyinka qaadayaan waxay xoog saari jirtay macaamiisha iyo waxay u baahan doonaan iyo inay hal abuurnimo shaqeed ku daraan. hal abuurnimadu waa waxyaabaha ka maqan ganacsigeena. waayo waxaad ugu imanaysaa 20 sano ka hor meheradii aad arkaysay ama 2 sano ka hor ama 3 sano ka hor iyadoo sidii u dhac oo shaqadeedii hal abuurnimo lagu darin qaab dhismeedkeedii aan hal abuurnimo lagu darin wax soo saarkeedii aan hal abuurnimo lagu darin. laakiin ganacsigu haddii maanta markaad hal abuur cusub oo ganacsi samayso intuu doono waxa leegaade haddii talaabada ku xigta maalin bahal abuurnimo cusub ama
sanadkiiba hal abuurnimo cusub loogu yimaado shirkadaas horumar fiican bay ku tallaabsanaysaa saddexdaa qodob in xoogga ugu weyn aad saarto macaamiisha laba in aad mustaqbal fog mar walba tallaabada qaadayso shirkad ahaan ka fikirto iyo saddex inaad hal abuur yeelato ganacsi isla ganacsiga hal abuurtayna gudihiisa hal abuurnimo aad ku darto mar kasta waa saddexda saldhig ee Amazon gaarsiiyo horumarka wanaagsan inaynu kaga dayananahay tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay haddaad fiidiyogan ka hesho subscribe sidoo kale share garee oo faaf aad u mahadsantahay